السلام عليكم. نولشا adduunka bini'aadamka runtii markaad fiiriso noloshaan noolnahay waxay leedahay maraaxilo ama marxalo cajiib ah. nolosha aan noolnahay ma jiro shakhsi dhihi karaa weligay caqabado ama dhibaato ma arkin, weligay wax murugo ah ma arkin ama wax murugo ah ma dareemin. maalinkaan dhashay ilaa iyo maanta farxad oo kaliya ayaan ku dhex jiraa, ilama aan shakhsi sidaas dhihi kara inuu jiro. caqabadaha waa qayb ka mid ah nolosha bini'aadamka. inaad dareento murugo waa qayb ka mid ah nolosha, waayo haddaysan jiri lahayn murugo farxadda wax micno ama yeelan lahayn. sidoo kale haddaysan jiri lahayn wax walba cagsigooda nolosha wax micno ama yeelan lahayn. Dr. Ibrahim Al-Fiqi Allah yarxamu waa shakhsi aan aad u jecelahay, waa shakhsi buwaagtiisa aan aad u akhristo. wuxuu dhashay 1950 wuxuuna geeriyooday 2012. wuxuu ahaa khabiir ku takhasusay horumarinta bini'aadamka. wuxuu dhahay haddaysan jiri lahayn wax walba cagsigooda nolosha wax micno ama yeelan lahayn. tusaale, haddaysan jiri lahayn habeen maalin wax micno ama yeelan lahayn. haddaysan jiri lahayn murugo farxadda wax micno ama yeelan lahayn. hadday jiri lahayn faqri lacagta wax micno ama yeelan lahayn. markaad fiiriso hadaladiisa runtii waxay ahaayeen hadallo xigmad xambaarsan. sidaa darteed caqabadaha nolosha waxaad u qaadataa inay yihiin fursado aad ku kobcin karto naftaada. nolosha ha ku raadin jiljilic. noloshu waa halgan adag, waxayna kaaga baahan tahay inaad si adag aad ula dagaalanto. waxaad u baahan tahay inaad aqbasho xaalad walba aad ku sugan tahay. waxaa suurtagal ah maanta inaad haysato shaqo fiican, caafimaadkaagu uu taam yahay, farxad badan aad dareemayso, laakiin beri waxaa dhici doona adiga ma ogid. imise shakhsi ayaa maanta shaqo la'aan ah, imise shakhsi ayaa caafimaad daro isbitaalka u jiifa, imise ayaa maanta murugsan, imise ayaa maanta nolosha ka quustay. marka adiga mar waliba mid ku tasho. nolosha sideedaba way isgedgedisaa. adiga beri waxaa laga yaabaa inaad shaqadaada aad weyso, ilaahay kuma kaso, laakiin waa tusaalo. hadday baarintaas dhacdo ha isdhiibin, hana niyad jebin. waxaa suurtagal ah isbeddelkaas kugu dhacay inuu ku horseedo horumar ballaaran. waxaa laga yaabaa inay tahay fariin ku dhahayso adiga uma qallanti shaqaale inaad sii ahaato, waxaad u qallantaa inaad milkiilaad noqoto ee fadhiga ka kac. mar waxaan muuqaal ku arkay nin ganacsada ah oo Maraykan ah oo ka hadlaya qiso isaga ku dhacday. wuxuu dhahay waxaan ka shaqayn jiray shirkad aad u weyn, waxaan si aad isku fahansanayn shirkadda ninka iska leh. runtii nolosheedu waxay ahayd nolol sad ah, nolol degan, waxaana aad ugu faraxsanaa shaqadaan haysto. maalin maalmaha ka mid ah shaqaalaha shirkadoo dhan waxaa la isugu yeedhay shir degdeg ah. shirkii tooso bilaaban ka hor markaan wada imaanay, milkiilihii shirkadda wuxuu dhahay asagoo aan faahfaahin badan isiinin, shirkadda waan kaa racdiyey. runtii arrintaas aad ayaan ula yaabay, waxaa igu dhacay depression. runtii arrintaas waxay igu noqotay arrin aan loo qaadan karin. anigoo aan kelimo dhihin ayaa waxaan ka soo tegay qolkii ka socday shirka, waxaan soo aaday xaafadeyda anigoo aamusan. ehelkayga markay i weydiiyeen maxaa kugu dhacay, waxaan awoodi waayay inaan sharxo waxa ka dhacay shirkadda dhexdeeda. runtii aad ayaan u niyadjabay. muddo bilooyin ah kama soo bixin gurigayga, si qaas ah weliba qolkayga. waxaan ku dhex jiray qolkayga, waxaan ahaa shakhsi aad u niyad jabsan, shakhsi quus taagan. muddo kadib waxaa ii imaaday mid ka mid ah asxaabteeda, wuxuuna igu dhahay bal ka baran haddii aan asaasano shirkad anaga noo gaar ah. adigu waxaa tahay shakhsi khibrad leh, anigana waxaan hayaa lacago aan barnaamij ku bilaaban karno. anigoo niyad jabsan laakiin waxaan ku raacay go'aanka saaxiibkaygii. sidii ayaa waxaan ku bilownay inaan asaasno shirkad anaga noo gaar ah. maantan waxaan ahay shakhsi leh intaasoo shirkad. almuhiim, weligaa mid xusuusnow, guusha waxaa gaara qofka u qalma oo si dhaba u raadiya. fursadaha mar waliba waa kuwa jira oo meel kasta yaala, balse waxaa ka faa'iidaysta keliya qofka dadaala oo si daacada u shaqaysta. qof walba guuluu rabaa, laakiin dad yar ayaa guusha gaara. guusha waxay timaadaa marka aad ka adkaato caqabadaha ku soo wajaha. asalaamu calaykum.